xulka qaranka dalka Germany ma difaacan karaan koobka adduunka. Brazil ma laga yaabaa inay argudato. Iniesta suuragal ma tahay inuu koob adduun ku macsalaameeyo xulka Spain. Ingiriiska maxay qaban karaan koobka adduunka. Messi ma laga yaabaa inuu soo gabagabeeyo abaarta ka haysata koobka. Cristiano Ronaldo iyo xulka Portugiiska waan ogahay su'aalahan iyo kuwa kale ayaa la weydiinaysaa inta aan la gaarin koobka adduunka ee 2018. Warbixintan waxay soo koobaysaa 7 waxyaabood oo ku saabsan koobka adduunka ka hor inta aan la gaarin. Xulal badan ayaa ka qayb galaya koobka adduunka oo ku jiro xulka difaacanaya tartankan ee Germany kaas oo si la yaab leh u qaaday markii Brazil lagu qabtay 4 sano ka hor ama 2014. waliba xulkan uu hogaamiyo Low waxa ay finaalku soo gaareen iyagoo xasuuq u soo geystay xulka Brazil oo 7 gool iyo gool ay kaga soo badiyeen. finaalkiina waxa ay ka qaadeen xulka qaranka dalka Argentina ee uu hogaamiyo Lionel Messi. sidaas darteeda waxaan idin la wadaagi doonaa 7 xaqiiq ka hor inta aan la gaarin koobka adduunka ee 2018. Brazil ayaa ah xulka ugu badan ee koobkan ku guuleystay marka la fiiriyo 32 wadan ee ka qayb galaysa sanadkan tartankan. markii ugu dambeysay ay Brazil koobkan qaadaan waxa ay ahayd sanadii 2002. martigeliyaashii 2014 ay sidoo kale ahaayeen inkastoo 7 gool iyo gool lagu dhuftay semifinaalihii ciyaaray la ciyaareen Germany. wadamada ku guuleystay koobka adduunka ee hadda Ruushka ku sugan waxaa kamid ah Brazil oo 5 jeer qaaday, Germany 4 jeer ay qaadeen, Talyaanigana 4 jeer, Argentina oo 2 jeer ah, Uruguay oo 2 jeer ah, Spain oo 1 jeer qaaday, Faransa oo 1 jeer ku guuleysteen iyo xulka qaranka dalka Ingiriiska. ma jiro wadan ka baxsan Yurub ama America oo koobkan qaaday. Germany, Spain iyo Talyaaniga ayaa 3 mar ee ugu dambeysay koobkan la qabtay ku kala guuleysteen waa 2006, 2010 iyo 2014. dhamaanna waa wadamo dhaca qaaradda Yurub. sidaas darteeda wadamada ka yimaada qaaradda Yurub 11 jeer ay qaadeen koobka adduunka halka kuwa koonfurta America ka yimaada ay 9 jeer qaateen. 5 kamid ah Brazil ayaa ku guuleysatay, 2 Argentina iyo 2 Uruguay. ciyaaryahankii hore ee xulka qaranka dalka Germany Miroslav Klose ayaa ah gooldhaliyaha ugu sareeya koobka adduunka. 16 gool ayuu leeyahay Klose kaas oo 2016 isaga fariisay ciyaaraha caalamiga inkastoo 2014 uu kamid ahaa matalayaashii xulka qaranka dalka Germany ee koobka adduunka. labaad waxaa ku jira Luis Dalimo Nazario Ronaldo oo 15 gool dhaliyay. Gerard Muller ayaa 14 gool dhaliyay, Fontaine oo 13 gool ah, Pele oo 12 gool dhaliyay, Coxes oo 11 gool dhaliyay, Klinsmann oo 11 gool ah, Ron oo 10 gool dhaliyay, Cabilas oo dhaliyay 10 gool, Linker oo Ingiriiska ahaa oo dhaliyay 10 gool, Baptiste Argentina 10 gool iyo Thomas Muller oo hadda matala xulka qaranka dalka Germany oo isna dhaliyay 10 gool. midabo kala duwan ay kala haayeen kubadaha koobka adduunka 1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1978 ilaa 94, 1998, 2002, 2006, 2010 iyo 2014. Fontaine oo ah ciyaaryahan matalaya xulka Faransiiska ayaa haysta rikoorka in hal koob adduun la dhaliyo goolasha ugu badan 13 gool ayuu 6 kulan ku dhaliyay 1958. ciyaartoyda hadda ciyaaraysa koobka adduunka ama kuwa sanadihii ugu dambeeyay koobka adduunka ciyaaraya waxaa ugu sareeya Thomas Muller oo 10 gool ah, James Rodriguez oo 6 gool ah, Lionel Messi oo 5 gool ah, Luis Suarez oo 5 gool ah, Tim Cahill oo 5 gool ah, Gonzalo Higuain oo 5 gool ah, Neymar oo 4 gool ah, Shadran Shaqiri oo 4 gool ah, Kasiki Honda oo 3 gool ah, Hernandez oo 3 gool ah, Cristiano Ronaldo oo 3 gool, Marquez oo 3 gool ah. Rafael Marquez waa difaaca kaliya ee liiskan soo galay kaas oo koobkiisii adduun ee 5aad matalaya xulka qaranka dalka Mexico. gool dhalinta koobka adduunkana wuxuu la siman yahay Cristiano Ronaldo oo ay min 3 gool leeyihiin. sidoo kale koobka adduunka waxaa soo maray xulal ciyaaray finaal oo haddana aan sameeynin shuruud badan. markii ugu dambeysay koobka adduunka ee shuruud hooseeya la diiwaan geliyo ciyaar toos ah waxay ahayd 1966 waxaana markaas la diiwaan geliyay ciyaartaas oo dhan in la tuuray 2 shoot. 2014 xulka qaranka dalka Germany iyo sidoo kale Argentina ayaa wada ciyaaray finaalkii koobka adduunka. isku dar labadaani wadan waxa ay tuureen 20 shoot oo kaliya 120 daqiiqo ay ciyaareen.
England iyo West Germany ayaa wada ciyaaray 1966 waana ciyaarta shuudadka ugu badan la tuuray 77 shuud ay tuureen labada wadan marka la isku geeyay waxaana ahayd finaalihii 1966 markaas oo saddex laab ka badnayd tirada inta ay tuureen ciyaartoydii Argentina iyo Germany ee finaalkii 2014 balse Argentina iyo Germany waxay kaga duwanaayeen England iyo West Germany dhammaan waxay ahaayeen shuudadka finaalkii ugu dambeeyay 2014 kuwa la tuurayay marka lagu jiro kaliya boxiska ama qaybta rigoorada England way ka duwan tahay marka la fiiriyo xulalka kale ee sanadkan ka qayb galaya koobka adduunka tan iyo 1966 guushoodii koobka adduunka Ingiriiska hal jeer kaliya ay quarter final ka gudbeen balse England kama harin tartankan marka la fiiriyo hadalhayntiisa ciyaaryahanno badan oo bandhig fiican ka sameeyay Premier League ayaa laga reebay koobka adduunka Laurent Sané, Marcos Alonso iyo waliba David Luiz halka kuwa qaarna ay matalaan xulalkooda 130 ciyaaryahan ayaa diiwaan gashan kuwaas oo matala kooxaha ka dhisan Premier League haddana xulal kala duwan matala 81 ciyaaryahano waxa ay ka yimaadeen Spain 67 ciyaaryahanna waxa ay ka yimaadeen Germany Uruguay Panama Saudi Arabia iyo Ruushka waa wadamada kaliya ee aan matalin ciyaaryahan ka ciyaara horyaalka dalka England ee Premier League Ingiriiska wadamada kale wuxuu kaga duwan yahay dhammaan 23 ciyaaryahan ee matalaysa xulka qaranka dalka England waxa ay ka ciyaaraan kooxaha ka dhisan horyaalkaas labaad waxa soo galay Ruushka oo soo xushay badi ciyaartooyda ugu badan ee horyaalka Ruushka Saudi Arabia Spain waxa ay soo xusheen badi ciyaartooyda matasha kooxaha qaar ee ka dhisan horyaalkaasi Germany sidoo kale lixaad Faransiiska Iran Masar Japan iyo Mexico sida ay u kala horeeyaan marka la fiiriyo martigeliyaasha way kala duwan yihiin sanadihii ugu dambeeyay ma jiro xul Brazil ka daran marka la fiiriyo sidii ay ku hareen iyagoo martigeliyaal ah Brazil ayaa 7 gool iyo gool lagu reebay semifinaalihii koobka adduunka ee 2014 markaas oo xulka qaranka dalka Germany ay guul darro kala kulmeen balse wadamada ugu badan ee gruubyada ku haray waa ay jiraan sida South Africa oo 2010 iyagoo martigelinaya tartankan gruubyada soo dhaafi waayay Ruushka waxa laga rajeynayaa inay sameeyaan wax sidaas ka duwan inkastoo loo arko xulalka hoose ee haddana tartankan ka qayb galaya 6 wadan ayaa guul gaaray kuwaas oo ahaa martigeliyaasha tartanka ama ha qaadaan ama heerarkiisa kale u soo gudbaan waa Uruguay Italy England France Germany iyo Argentina sidoo kale wadamo kale ayaa wacdar sameeyay iyagoo aan ahayn martigeliyaasha koobka Brazil iyo Spain ayaa ugu horeeya kuwaas oo aad u fiican yihiin markaysan koobka martigelinaynin wadamada kale ee isku dayay inay koobka wacdar ka sameeyaan iyagoo aan ahayn martigeliyaalna waa Mexico Chile Japan Switzerland iyo waliba xulka qaranka dalka Mareykanka marka la fiiriyo rikoorada rigooro tuurista xulka qaranka dalka Germany ayaa hadda ugu wanaagsan marka koob adduun laga hadlayo rigoorooyinka Argentina 5 rigooro ugu dambeysay hal xabay qasaariyeen Brazil sidoo kale 3 rigooro waa 4 rigooro ugu dambeysay hal kamid ay qasaariyeen Faransiiska 2 kamid ay qasaariyeen 4 rigooro ugu dambeysay Costa Rica Iran Spain Netherlands Talyaaniga Mexico iyo waliba England koobka adduunka ee 2018 waxa laga rajeynayaa inay ka soo bixi doonaan ciyaaryahanno daayira ah kuwaas oo wacdar ka sameeyay kooxooda kuwa qaarna waxay ka faa'iideysan doonaan bandhigii ugu horeeyay ee xul adduun ay u yeeshaan qaarkood waa ay dhaawacmeen kuwa ayaa hadda dhaawacyo ku seegi kara halka kuwa aan wali lagu soo darinna ay nasiib u yeelan karaan in koobka adduunka ay ka soo muuqdaan magacyada ugu weyn ee tartankan la fiirinayo waa Andres Iniesta oo markiisii ugu dambeysay ciyaaraya koob adduun Lionel Messi oo u muuqda markii ugu dambeysay inuu ciyaarayo koob adduun Cristiano Ronaldo xulka Brazil xulka Germany iyo wadamo kale ayaa laga sugayaa inay wacdar ka sameeyaan dalka Ruushka